السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتيدا ميل با أدونك دعالديسا كبد جوجتان وأنيغو شمس حسن كسو دوادا جنالكيغا شمس حنا official waaye janalkeyga soo dhawaada idin leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba bilis haddii aad nagu cusub tahay subscribe inoo dheh like iyo share comment shams way timid caawo maxay sida caawo waxa aan noo sido waxay tahay walaalayahay soo dhawaada dhamaantiin caawo waxa aan idiin wado waxay tahay waa qiso cajiib ah ya oo aan la yaabo xaqiiqdii adna waad la yaabi doontaa markay ku soo gaarto waxaan ku leeyahay soo dhawow nagu soo dhawow qisadan waxay ka dhacday Yurub ayay ka dhacday waxaa ila soo wadaagay aabba Soomaaliyeed ayaa ila soo qaybsaday xanuunka iyo dhibaatada hayso waa aabba Soomaaliyeed caruur yar ayuu hayaa ilmo yar ayuu hayaa ilaa dhowr ciyaal oo haya maxaa ku dhacay aabahan Soomaaliyeed maxaa qabsaday aabahan Soomaaliyeed waxa qabsado waxay tahay waa aabbo wuxuu hayaa ilmo oo bilaa hooyo ah hooyadood Allah u naxariisto sida li ii sheegay ama oo asiga ii sheegay hooyadeed caruurtan way kala tageen markay kala tageen kadibna way geeriyootay Allah u naxariisto way geeriyooto dhahay caruurtan hooyadood waana kala tagnoo dhahay markii hore waan kala tagnoo yiri dad kala tagay ayaan ahayn oo yiri caruurteeda yarkaana aniga ayaa haystay ayuu dhahay oo markii horeba kala soo wareegay aniga in aan haysto wuxuu dhahay caruurta aragtidaas ay arkaysa la adligeed aan u diido dhahay ayay wadanka uga tagtoo dhahay Soomaaliya ayay tagtoo dhahay halka ayay ku geeriyooto dhahay Ilaahay ha u naxariisto naxtintii malaha caruurta ay ka qaaday ee la geeriyooto dhahay teedina way ay soo gashay alxamdulillah wuxuu dhahay dhibaatada ay haysato waxay tahay caruurta markaan halkaan ayaan wada joognaa waa 6 ciyaal 3 gabdhood iyo 3 wiil Allah na xafido intii haysato Allah u xafido intii oolad la'aan ahna Allah siiyo wuxuu dhahay aabahan Soomaaliyeed waa 6 ciyaal 3 gabdhood iyo 3 wiil ayaa ii joogo dhahay wuxuu yiri maalmaha kamid ah ayaan gabadheeda weyn curada ah canaantay oo dhahay waxa aan ku canaantayna waxay tahay dhahay wax qaldan ayay igu sameeyso dhahay iskuulka ayay gabdha cadaana iskala soo hana qaadeen kulito ay isbarteen ayay xiriir la sameysay guriga igu keentay meel walbaba gabadhiyo waxaan arkoo dhahay xijaabkiis ka dhigtay xijaabkeeda iskuulka ku tagi jirto dhahay wadankan iyada keenoo dhahay idoo yar ayaan keenoo dhahay aabahan waawo meeshay ku barbaartay ku weynaatay ku qaangaartoo dhahay iyadoo 4 sano jirto ayaan halkan keenoo dhahay Ilaahay ii deysto wuxuu dhahay waan canaanto yiri maalmaha kamida ayaan canaanto dhahay maanta dhibaatada iyo culeyska iyo problemka aan dareemayo dhahay hadii aan ogaan lahayo dhahay in oo iiga imaanayo gabadhaas aan canaantay la adligeedo dhahay waan iska ilaalin lahaayo yiri xaqiiqdii waan iska ilaalin lahaayo dhahay waana ka taxadiri lahaayo dhahay oo ma aana canaanteeno yiri waxay rabtaa sameeyso oolaadan kale ka salfanaysa ayaan isdhihi lahaayo dhahay maanta wuxuu yiri dhiikar qabaayo yiri sokoraan qabaayo dhahay dhibaatadeedu way iska badan tahay yiri xanuuno aad u fara badan ayaa bilbish ka dambaysa liiga sii helayayo dhahay aad iyo aad oo brosharkeyga aad ugu kacsan yahay dhahay dhibaata ay haysato dhahay Ilaahay ha iga dulqaado Allah iga dulqaadi karo Allah ha iga dulqaado caruurteeda aad u jeclaayo dhahay aabbo iyo hooyo booskoodi ayaan buuxiyo dhahay aan iskugu darsado yar xaqiiqdii hooyo iyo aabbo dad qof booskiisa buuxsaday ya oo hooyo iyo aabbo isku noqdo qurbahan aan wada naqaano oo aan aragnayna wallahi waa dhif iyo qaliil haddana gabdho soo koriye rag waa caadi samaha rag waa caadi haddana gabdho yar soo barbaariyay soo waxbarasho geen jiray ka keeni jiray waqtigiisa dhan ku qaatay caruurtiisa dheedheel ma aha xaqiiqdii aad iyo aad ayay u adag tahay asxaabay waxaan idin leeyahay marka hore aabahan Soomaaliyeed please codsi waaye videogan u share gareeya u la gareeya caruurtiisa in ay daawadana dhici karto taleefanay haysataan oo dhahay gabadha weyn
oo dhibaatadaas noo horseeday taleefankeeda ayay wadataayoo dhahay ayay heesataa in ilaahay qulubteeda xasalooni deganaasho ee ku dareentoo yiri aan eebba oga baryaayayoo dhahay mar walba aan salaad dukadoo yiri xanuunka anigii ahaayoo dhahay oo aan xanuunsanahoo yiri kama fikiroo dhahay mana ka walwalsaniyoo dhahay waxa aan ka walwalsanahoo yiri oon habeen iyo maalin aan la hurdila ahoo dhahay hurdada iiga tagtoo yiri walwalkayga iigu sii saa-idayoo dhahay marba marka ka dambeysoo dhahay waa caruurteyda iga maqanoo yiri oo gaalo maanta gacanta ugu jirtoo dhahay ilaahow adigan ku barana rabbi oo raxmaano intii oolaad ka maqan tahay ilaahow oolaadooda dib ugu soo celi ilmahana ilaahow rabbi oo raxmaano noo toosi oo noo hagaaji ilaahow adigan ku barinay ilmahaaga haddii si kasta xataa u xumaadaan gaal hadduu kaa qaato jiirkaaga go-ayo wadnahaada eber noqonayo barashar iska deeyay inaad waalata xataa hasikaad u noqonaysaa marka allihina abuurtay adduunkaana keenay rabbi waxaan ka baryeynaa oolaada maqan oo dhan in ilaahay waalidiintooda gacmahooda dib ugu soo celiyo in ilaahay waxaan ka baryeynaa oolaadaas ehel walaalahood aabahood hooyadood ee ka maqan yihiin ilaahay in dib ugu soo celiyo wuxuu dhahay gabadhii iskuulka maalintii markay tagtoo la habeenkii markaan canaantoo dhahay subaxii oo dhan caadiya ahayd quraacda markaa u diyaarinay iskuulka tagtoo xilliga galaaska soo deeyay ee soo bixi lahayd ee diidoorin soo dhaqaaqdo sidee ii sheegeen weer macallimiinta waxaa loogu wacay booliis qolada ilmaha qaadato wadankaas waa Norway wuxuu dhahay ilmihii gabadhii way hadashoo dhahay aabbo kulul waaye aad ayuu u kulul yahay aad ayay qiiladiisa u badan tahay uma dul qaadan karo mana xamili karee dhahday in aan gurigaas ku laabtane mar rabo mana u baahni mana ku noqonayo walaalahayna kuleeto dhib ayay ku qabaan sidaani dhibka u dareemaya ee ayagana u dareemayaan bal gabadhaadii curadda ahayd oo aad ku faani lahayd oo sidaa galaaska la dhex fariisatay maxaa dareemi lahayd maxaase noqon lahayd xaqiiqdii murugo kale waay ilaahow hana tusi rabbi oo raxmaano intii oolaad ka maqan tahan ilaahow dib ugu soo celi wuxuu dhahay meeshiyaa laga wadoo dhahay meelaa la geeyoo dhahay caruurteedii kale kuwii yaraan kadhig aan ka doonto yiri xanaanada waa aan ka keenayoo dhahay wuxuu dhahay labadii kaletood oo iyada ku xigeen iskuulka ka yimaadeen oo yiri guriga ayagaa imaadaan way imaadeen oo dhahay iyada unbaa maqan iyo gabar kale saddexa maqan war saddex ayaa timid mid yarhaa wiila yaraa iyo gabar intii kale afartii kale way imaadeen wuxuu dhahay iyada unbaa ka maqan waa aan sugnoo yiri malahan adiga xilliga ay tahay oo dhahay 8 saaci bar 9 saaci bar ee u dhaxeysoo dhahay ayaa laga soo wacay telefoon hebel waan ku baahanahay waan ku soo soconaa qoladaasaan ilaah baa iga sareeyo dhahay eragaas markii aan maqlay oo dhahay si aan ahaa ma sheegi karo dhahay si xaaladayda ay ahaydoo yiri ma sheegi karo waxa aan ku suganahay yiri mala soo qiyaasi karo xaqiiqdii wuxuu yiri aad ayaa u naxoo yiri 2 salaado sunnaan tukadoo ilaahan bariyo dhahay way iimaadeen oo dhahay gudaha soo galeen qololkoodii fiiriyeen oo dhahay guriga kontarooleen wax walba aad u qurux badan yihiin ilmihii kala la wareystay aabiin ma idin dilaa aabiin ma idin ku qayliyaa aabiin muxuu idin dhahaa inti kale shanti kale maxay dhaheen anaga aabaheen lama dilo anaga aabaheen best baaba waaye aadaan u jecelnahay aabaheen waa aan ku dhaaranaa aabaheen waan ku faraxsanahay dhibku ma qabno hooyadeena naga geeriyoota asiga ayaa nahayo waa aan ku faraxsanahay aabaheen ma jeceshihiin aabihiin in aan idinka kaxeeno aa la dhahay xataa markaasay dhaheen caruurtii maya aabaheen anaga meelaan ka arkaynin ama aabaheen aana u jeedin hurdo nagama imaaneyso anaga aabaheen waa jecelnahay waa saaxiibkeena noogu dhow aabaheen asigaa la tashanaa asigaan su-aalo weydiinaa
asigaa hoomooga naga caawiyo asigaa cashiradeena nagu saacido cid kale maba naqaana anaga alxamdulilah alloo baryay inta loo soo socday ilaahay weyna ku carare ilaahay weyn ku uuntay adduunkan ku keenay ku qalqay ku uumay adoo xabiibiye ahayd ciid ahayd naf ku geliyay ku afuufay adduunyadan ku keenay kugu irsaaqay alloo ku carare alloo baryo ilmihii kulli isku afee noqdeen iyada maahane marka waxay dhaheen ilaa dhowr bilood ilmahoo dhan annagaa soo heyneyno xaaladooda la soconeynaa hadalladan inay cabsi ka keentay iyo in kale maalin kastana ilmahaada waa la kulmi kartaa naruurada yarta aan heestoo yiri inta yarta ah oo yiri aan ku dhaqdhaqaaqayo waa maalin kasta ilmahayga aan la kulmo laakiin gurigii oo cidla ahoo yiri aan dib ugu soo noqdaa gurigii oo faaruq ah unbaan dib ugu soo noqdaayuu dhahay marka waxay dhahayaanoo yar hadeertaan arrintaadi annaga ilmahaada aaday u faraxsan yihiin cuntada way diidaan habeen walbu iska ooyaan annagana ma rabno oolaad yaryar inaan xaq ka galno marka bishaan haddii ay dhammaato caruurtaada waan kuugu wareejinaynaa gabadhan weynna inay iyada qaldan tahay ayaan saarnay haddii si kasta aan u baarnay caruurtaada haddaan kaasoo wadana xataa yaa gabadhan iyada inay qaldan tahay ayaan u qaadanay kulli waa lagu siinayaa besti baabaa tahay ilmahaada sida sheegeen waxaan ka aragnaa ilmahaada cuntada aan siino sidaas u cuneynin ee ugu yaqyaqsoonayaan ee u diidayaan habeen kasta wuxuu yiri ma seexdo laba indhood aan leeyahay yiri iskuma geeyo salaadan intaas u taagan oo dhahay allaan baryaayayuu dhahay sidaqan dhiibtaayuu dhahay meel walba dad dhibaateysan haddii aan ku arko waan u dirsadaayo yiri waan siiyaa wadha wixii aan haayo waa aan siiyaayo yiri kama hagradoo dhahay ee gacanteeda ku jiro xaqiiqdii waan bixiyaayo yiri maxaan u bixiyaayo dhahay ilmahayga in ilaahay dib iigu soo celiyo dhahay yaa caruurteeda in ilaahay dib iigu soo celiyo ayaan u sameeyaayo dhahay taas ilaahay waxaan ka baryayaa waxyaraa ii dhiman in ilmahayga dib liigu soo celiyo ana dhaqtara ligeeyo dhahay sokorteeda aada u kacsan oo yiri waxaa lii dhaho yiri isdeji sokortaa liiga dejinooyaahoo dhahay hadda dhaqtaraa ku jiraayo yiri bisha markay dhammaataa noo balana anna ee sokorteeda degtoo dhahay oon caadi noqdo oon si fiican u dego caruurteeda in liigu wareejinayo layga ballan qaadoo dhahay waxa niigu soo sheegtay ama aan inkuugu soo gudbiyno waxaan ahoo yiri aabba dhiban aabba caruurtiisa la daala dhacayo aabba dhibaateysan aabba dhiban shala ayagoo intaa ka yaryar hooydad isku dhacnay kala tagnay haddana iyada ilaahay iska oofsadoo yiri ilmihii markay iiga tagtaani ilmihayga aan iska heystoo dhahay wuxuu yiri ilaahay ha u naxariisto way geeriyootoo dhahay ilaahay ha u naxariisto naxariis janno allah ka waraabiyo wuxuu dhahay ani caruurteyda wuxuu dhahay wax aan siisanayo dunida ma jiraanoo dhahay aadaa u jeclahay caruurteyda waa aan ku dhaartaayoo dhahay xaqiiqdii wuxuu yiri ilmahayga waxay ku faraxsan yihiin maahane waxayse ku faraxsaneen weligay ma aana sameyninoo dhahay marka waxaan u baahanahoo yiri in aad iisoo duceysaan duco ila soo garab istaagtaan caawu dhahay wax kale idinkama baryaayo yaa duca ayaa idinka baryayaa shamse dadka ku xiran oo dhammaanoo dhahay familkeeda faniskeeda wax walba waxaan alla xaggiisa in ay ii wada baryaanoo dhahay in ilaahay ana caafimaad isiiyo caruurteedana dib ilaahay iigu soo celiyo ilaahow aamiin yaa rabbi asxaabay waxaan idinka codsanayaa videoga hadduu idin soo gaaro usii sheergareeya sida u gaaro asiga laftarkiisa oo u daawado oo u arko waa aabba xanuunsan dhakhtaroo ku jiraa caruurtiisa gacan gaala ku jirto dhammaantiin waxaa idinka codsanayaa in aad videogan usii sheergareysaan duco qurux badanna aad la qaybsataan aabbahan soomaaliyeed dhibaateysan in ilaahay culeyska ka dulqaado qof walba oo culeys dul saarayahani in ilaahay ka dulqaado culeyskaas aan eebba u baryeenaa biidni illaahi kariim ilaahayno aan u wada barino ilaahay meel ka weyn oo loo cararayo ma jirto alla aan u barino subxaana wa tacaala ilaahayna waxaan leenahay inta caruurtooda ee ka maqan tahay ilaahay dib ha ugu soo celiyo guryahooda nuurkooda
iyo caraftooda ay jeclaayeen dib ilaahay dib ha ugu soo celiyo inta caruurtooda haysatana waxaa leenahay ilaahay ha u xafido rabbi ha u barakeeyo intii oolaad la-aan ahne rabbi oolaad saadaqa oo ilaahay inuu ku irsaaqo oolaad saadaqa in ilaahay ku irsaaqo aan eebba uga baryeena aamiin yaa rabbi asxaabay waxaan idin leeyahay videogan haddii uu kusoo gaaro noo sheer garey noo laag garey comment qurux badan nala qaybso waa aad ku mahadsan tahay intaaba haddii aad noo sameyso waxa aan kaaga sii tegayaa waa anigoo ah Shamsa Xasan kusoo dhawow channelkaygana waa Shamsa Xina official kusoo dhawow waan ku leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba dhammaantiina waxaan idin leeyahay aad iyo aad idin wada jecelahay love but to love yeah dhammaantiin macmaca in siiye aad iyo aad idin wada jecelahay comment qurux badan aabahan Soomaaliyeed ina u duceysaan balanteena ah waxaan idin leeyahay dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabteeda